ذات كميشان فردية بين رجال ونساء إمي سقفها كجرو $2 مليون هايستا بهلقى عنتها تاغو وحبنا لقا قادم مايه ما جوغا بس ما جوغ قبلها أقول عقبة بالليل ما هيسان $2 مليون شيلين ما هو هيسي تاسي $2 مليون ما هيسا ما يالي شو ما هي $2 مليون قاضو دقيقة اللي جوغا لغسينا يا لكن لبدا دا اندود كن قف كي يلي قعنت كره تاغو كم واحد أفرتنا كدغينا هي $4 مليون لحدن قارسي $100 مليون قاضو لبدا اندود كن يا يلا قبلها قبر يلي شام كجرتا waxaan u malaynayaa lishaanu xaalihim markay hadlaan waxay oran laayeen $100 milyan baa tiriye dhulka mugiiso dahaba haddaad heshiiso labadayda indhood ma bixinayo soo sama ma tahay hadda laba indhood ma ka hadlay dhagihii iyo maanan gaarin weli imisaad bixisay adigu ma qad qaadatay imisaa lagaa siiyey yaa ku siiyey man actaak allah rabbulcaalamiin هي مقل كنا سوسال لما مدها مقل كاغم يدي بسن لهي عقلي قبل كورهما قبلها هو روح بدن هدي هو روح بدن تحي وروح يا شباب يا يحبون الجمال قبل هو روح بدن دونك هو روح بدن ملكة جمال لكن عقلي لهي مقاذن لهي مقرجن لهي هي هذه قبلها ويلك وقروح بدن وقول عق بدن لكن عقلي ما له عقلي وولي هي ما قال الله كم قيمة العقل قيمة عقلية ما قوي ولذلك في سورة النحل وجعل لكم السمع والأبصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقوا خليفة السن آدم شيخان شيخ عبد الرشيد سعد السوفي إلهي أمري صار دهريو إلهي عفمات تامة إلهي هسيو السيو أنت لما تكانه إلهي عفمات هسيو لكن محاضرة واد دقيستين بقول كيف بقول واهو بأنا دقيستين لكن أنا معها إن أنا هاد إذا مغشيني يكود بدي أرد مسترن لكن qeybahan hadda laga hadlay mas hadda uu ka hadlay ayaan rabaa laba kelmadood keliya inaan ka dhaho $20 milyan yaa haysta cid haysata waa la waayey laakiin waxaa la yidhi $20 milyan daqiiqada hadda aan joogno ayaa lagu siinayaa labadaada handhoodna si cid dhiibta waa la waayey ilaa xeer la gaarsiiyo $100 milyan daqiiqadaasaa lagu siinayaa handhahagana si meesha waxaa ku jirtaa cashar baa ku jira casharka ku jira waxaa ka mid ah handhahan oo sharta lagu fiiriyo oo baadilga lagu fiiriyo wax wanaagsan lagu fiiriyo oo maantay arada iska gasho waxa kasta iska galaan oo alxamdulillah hadana qashin iyo waxba korka ka fuulina saan u fiiyin alxamdulillah oo maantay cid lacag ka siisay isin jirin cid maanta lacag naga siisay isin jirin ka waran ilaahay subhanahu wa ta'ala handhahan markii uu siinayay hadii uu dhihi lahaay ka waran handhahan waxaan idinku siiyay darteed in aad cibaado ii samaysaan oo maalin kastan ii sujuudaan haddii ii samayn weysiin handhaha waa lidinka qaadaya ma kullu tahay in qof antaas qof la yiri inuu maaragtay baadil been iyo ciyaar iyo zino iyo khamri maaragtay salaada oo laga tago ilaahay oo lagu caasiyo diintiisa laga tago rasuulkiisa la caasiyo meel la samayn lahay
hadda waxaa 100 milyan oo doolar lagu siiyey oo handhahaaga aad ku bedelan weysay war ilaahay hadduu dhihi lahay ka waran haddii antaas ii samayn karin handhahan waa la laabanaya mase waa laydinka qaadaya haddii la dhihi lahay maanta ma ilada tahay qof kastoo dunidan ku nooli in hal saacadood ma saacad iska dhaafa daqiiqad inuu ilaahay u sujuudo inay dhaafi lahayd ma kula tahay no maantay meel kala qaban waxaad tagtaa meelaha shaahiyada lagu cabo meelaha kafeteerada tag dadka dhammaantooda ka hadli maayaan nicmada ilaahay uu siiyey ka hadli maayaan waxa kaliya ay ka hadlaan dunida waxyaale kaliya ay ka hadlaan qaarkood intii waxaas dhan intay ka tageen war xitaa iyaga ayaa iscaaya qaarkood qabiil bay aayaan qaarkood hebel ma taqaanaa qaarkood hebel baa lagu dhegan yahay marna ma xasuusanin nicmada ilaahay siiyey tusaale meel kala qaban bisha ramadaan markii la gaaro waxaad arkaysaa 100 qof oo waxaa jiro 100 qof oo markii bisha ramadaan la gaaray kaliya ilaahay xasuusto dadkaas maxay ilaahay u xasuustaa xilligaas anta kale maxay u xasuusan waayeen waxay u xasuusan waayeen ilaahay ma aabudin bisha ramadaanka ayay aabudeen bisha ramadaanka kaliya ayay aabudeen war maantay ma jiro qof 100 milyan iska dhaafe sida sheekhu sheegay dhulka muggiiso dahabaa lagu signayaa fartaada kaliya nasii it maanta yeel lahayd ma jirto qof kasta wuxuu rabaa inuu dhammaystirnaado caafimaadkiisa uu bad u qabo laakiin isaga waxba qabanin oo ilaahay aabudin nin kasto saasuu iska rabaa nin kasto saas ayuu iska rabaa war maantay haddii la dhihi lahay neefta keliya aan neefsano mase oksijiinka keliya aan jiidno keliya war rabbigii allihiina siiyey oo lacagna naga siin oo hantina naga siin oo waxba aanana weydiin maalnana weydiin war ka war maanta haddii la dhihi lahay haddaad ii sajuudayno aan li aabudaynin nicmadaa idin sii waa idinka qaadaya haddii la dhihi lahaa intaas waryaa salaad ka tegi lahaa war maanta kumanaan waxa jirto ilaahay ilaawday antay ilaahay ilaaween ayaa weliba maartay rasuulkiisa iyo allihii abuurtay ayay cafliqaadiyeen ay ahayaan maantay diin la-aanta iyo sheegada gaalnimada meesha laga gaaray war allihiina abuuray ayaa maanta harwah la gaaray in la aayo ya war maantay nicmooyinka ilaahayna siiyey way farbadan yihiin nicmooyinka ilaahay maanta na siiyey way farbadan yihiin waxa 1 iyo 2 la dhihi kara ma laakiin yaa lacagna weydiiyey war san aan waxa ku urunaan na siiyey lacagna ma weydiin afkii oo kala furan ah waxa cuni kartaa na siiyey lacagna ma weydiin handhihii waxa lagu arkayaa na siiyey waxna ma weydiin dhegihii baan na siiyey waxna ma weydiin iyadoo intaasina na siiyey ayaa haddana waxaanu noogu daray caafimaad war ninkii intaasay xasuusan waayey oo ilaahay cibaadadiisa xasuusan waayey oo khayrkii ilaahay dunida u keenay mase wixii ilaahay dunida u keenay ninkii xasuusan waayey ninkaas maanta maxaa la dhihi karaa absolutely nicmooyinka ilaahayna siiyey maantay haddii intii ilaahay aayad kala soo dejiyo mase maarta intii dunida la rogo la yiraahdo nicmo kasta aniga aadan siiyo waxaan idinku siinayaa in anigaad i aabudaan absolutely wallaahi inay adag tahay waa la ogyahay waa khayr wade alxamdulilah anigoo caafimaadkaan qabno ayaan dad kacaynaa dadkaan dhibaataynaa dadkaan dilnaa dadka hoolahoodaan dhacnaa weliba xoog baan u sheeganaa maanta xeer waxaynu gaarnay nin adiga oo kale ah ya oo harma isla dhalateen oo 9 bilood oloosha ku jiray adigana sidaas oo kale harmana dhalateen aad wada korteen xeer maanta waxaynu gaarnay inaan dhahno
wara anigoo in hebel ah mas ana in hebel ah ma saas dhihi kartaa awoodaasaa la gaaray awooddaas ayaa la gaaray war haddii ilaahay uu dhihi lahay ka waran waa kelmad intaasi la eg haddii aan liigu aabudayna afkiina ma ka soo bixi karta haddii la dhihi lahay maxaa la samayn lahaa absolutely wallaahi id kastoo dunida joogta ilaahay bay u sujuudi lahayd maalin kasto haddana ilaahay wuu og yahay ninka nicmadiisa ku shukriya iyo ninka nicmadiisa ku kufriya wuu og yahay haddana cadaalad si rasmi ayuu u quudiya waxaana uma diido way cunaan way cabbaan alxamdulilah waxa ka maqan mala barrita asigoo ku caynayaad arag war meel kale ha ka fiirin war ninkii nicmadan ku siiyey ilaahay khayrka antaa laa ku siiyey maanta fiiriya salaadiisaa ka tagta cibaadada keliya dunida laguu keenay salaad bay ahayd ninka salaada ka tega waa kafar ninkaas waa gaalowey salaad baad ka tagtay salaad intaa ka tagtay ayaa xeer waxaana gaarinay in asiga la caayo oo ilaahay waxa laga sheego rasuulkiisa waxa laga sheego haddana kama goosto nicmadii uu siin jiray kama goosto sidiisa ay u qaataan inna cadaaba la shadiid qofkaasoo kale mar baa la qaban doona maalin qoommo iyo ciil waxba taraynin ayaa la qaban doona ilaahow noo naxariiso ilaahow noo naxariiso arrinina hadda ka hor waxaan ku dhahay xilli maaragtay soona maalinka dhan waa la soomnaa markuu afurkii la gaaray ayaa waxaa arkay ninkiioo sigaarku afuray markaasa waxaanan ku iri warniba maanta dhan waa soomaneedee sigaarkaada ku afurayso waa maxay ninkii wuxuu gu yidhi mataqaana wuxuu yidhi markii horeba ilaahay dartiisu maana soomaynina bisha ramadaan oo marti noo tahay darteedaana u soomaayo bishaasaan soo dhoweynaya martii noo ahayd ninkii waxaan ku dhahay warkaaga hadduu meesha gaaray waxaan idhi haddaba berita waxay ka dambeeyo soona iska dhaafa iska bariisay ninkaas wuu caddaystay inuu maaragtay ilaahay dartii u soomaynin oo u soomaayo bishaas haddayna waa sheega war haddii la dhihi lahay caafimaadkaada qabtiin baa aan maaragtay caafimaadkaa idin siiyey waxaan idinku siinaya inaad ibarisaan aad ii sajuudaan caafimaadkaa idinku siinaya mase laidinku siiyey haddii la dhihi lahay ma kulu tahay inuu qof maaragtay baadil u socon lahaa salaad laga tegi lahaa ilaahay lacay lahaa rasuulkii lacay lahaa ma kulu tahay adi absolutely maya war ninka loo shaqeeyo mase ninkaa u shaqaysid oo shaqada u haysid shaqada markii aad soo gelayso mar kasta waxaad ku dadaalaysaa maamulka aad u shaqayso inuu waxba kaa arag wax shaqadaa lagaaga saari karo inaan lagaa arag mar kasta waa istoosinaysaa qofka is ammaanayaad noqonaysaa qofka istoosinaad noqonaysa si aad u noqoto qofka keliya shaqada meesha ka socoto qofka keliya la ammaani karo mase qofka keliya shaqada hayo si aad u noqoto ayaad maantay aad ku dadaalaysaa waa la hubaa 100%. laakiin ka waran haddii lagu yidhahdo ka waran ninka aad u shaqayso 2 jeer hadduu intuu ku yeero uu ku yidhaahdo shaqada sacda ku wada khalad waaye haddaad toosin weyso bannaankaad ka tahay wallaahi waxaad u shaqaynaysaa se hadduu u shaqaynayso 100 u shaqaynaysaa waa la hubaa taas waa la hubaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka waran oo caafimaadkaa ku siiyey lahaadkaa ku siiyey shaqada ninka u shaqaynaysa kugu siiyey salaadiisaa ka tagtay soonkiisaa ka tagtay oo mar asiga caysay mar rasuulkiisa caysay ka war ilaahay ha noo naxariisto ilaahay ha noo naxariisto assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu